lix waxyaabood oo sababa had iyo jeer aad quusato adiga ayaad ka quusato sheeyadan soo socda. kow waxaad doonaysaa natiijo sare iyo yool sare inka badan intaad heli karto xirfad ee dunida ku maamusho adiga. labo guuldarada waxaad u qaadataa guuldaro oo keliya halkii aad cashar ka qaadan lahayd. guuldarooyinka ku soo gaara qaarna way ku soo laabtaan adigoona weligaa ka faa'iidaysan, qaarna cashar ayaa ka qaadataa laakiin ma sii dabagashid sababtoo ah ma danaynaysid guuldaradaasi inaad cashar ka qaadato. saddex ma lihid anshax aad ku degnaato fikradaada. mar walba fikir ayaa la boodaa. dadka dunida maamulaya hal fikir ayay la imaadeen, dadkaana ku ixtiraama fikradooda. bulshada ayaana ku aqaano fikirkooda, bulshada ayaa ku garanayo fikirkay la imaadeen. mar walbana waa la ixtiraama fikirkooda. adeegana waxaa loo baahan yahay fikir mid qabsi leh oo hal meel u go'an. hala boodin fikirada qaar ee dadka kuu sheegayaan. adiga go'aanso noloshaada inaad fikir keensato. si fudud ayaad ugu mashquushaa waxa qofka kale samaynayo. qofkaasi wuu u gaaray waana loo ixtiraamaa. adigana la gaar fikirkaasi. ha ku mashquulina hoo aadin hama taageerin adiga fikirkaas la loonan. shan waxaad kuu maqan yool cad oo qeexan. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku siiyey awood aad wax walba ku qabsan karto dunidani. adiga ayaa laga rabaa habqabsi inaad la imaado ee dadkaani aad u soo bandhigto waxaad adiga hayso. qof walbana wuxuu ixtiraamayaa markaad adiga gaarto guushaasan oo qofkaasi u baahan yahay. waxaad yeelan doontaa caqabooyin fara badan. wax badanna ayaad daalaysaa, wax badanna ayaad murgoonaysaa. waxaa loo baahan yahay inaad ka sii baxdo. lix waxaad aaminsan tahay inaysan macquul ahayn inaad horumarkan la loolanto. horumarkan lagu sheegayo wuxuu ka soo bilaabmay qof haween u dhafray iyo qof haween waqti siiyey ama qof waqtigiisa ka faa'iidaysto wax bartay. waxbarashadana waa muhiim. wax akhri, wax dadaal, wax tixraac sameey. waxaan lagu sheegayo waxay ka imaadeen tixraac fara badan. horumarkan wuxuu u baahan yahay inaad tixraacdo wax badanna aad samayso sidee dadka kugu daydaan adiga. dad qaar baa iska ciyaara balse adiga muuji dadaal. dad qaar baa ku dhaleecaynaya fikradaada. dad qaar baa horumarkaaga nacaya. dad qaar baa kugu naci doono waxaad horumar la gaaraysid. horumarkan waxaa u imaado caqabooyin fara badan. waxaa loo baahan yahay sabar. waxaa loo baahan yahay guushaada inaad diiradda saado. hal qof ayaa ku hereeyo waa waalidkaaga iyo familkaaga iyo asxaabta ku jecel adiga. inta kaleeto way kaa tagi doonaan. raaco fikirkaaga oo eeri oo burso fikirkaaga, burso horumarkaaga. raacdee guushaada. haddaadan adiga raacdaynin guushaada ma gaari doontid guusha loo baahan yahay ee nolosha kugu baahan tahay. ma gaari doontid. dunidana waxaad ka tegaysaa adigoona wax kusoo biirin waxna qabsan ayaad ka tegi doontaa. dunidana intaadan ka tegin raac guusha iyo horumarka loo baahan yahay in la soo saaro. guushu waxay leedahay farxad. ugu dambeyntiina waxaad heli doontaa farxad ballaaran aysan qofna hore u arag. farxaddaasina lama helo, waxaa la helaa marka la guulaysto oo keliya.